daawadayaal soo dhawaada markale maanta waxaan idiin haynaa qiso aad ka heli doontaan intaan u gudagelin sheekada. haddii ay tahay markii koowaad ee aad kanaalkeena soo boqonayso subscribe noo dheh, muuqaalkan hadduu ku cajabin like noo saar. sheekadu waa sheeko aad u cabsi badan. kanaalkan waxaa bedeli doonaa hadda kadib sheekooyin cabsi lebis. dhalinyarada midkood ayaa wuxuu ka sheekeeyey dhacdadii ugu cabsida badneed ee abid noloshiisa ku dhacda. wuxuu ahaa baagamudo, wuxuuna arkay shaqo la xayeysiinayo oo in loo baahan yahay waardiyey makhaasiin habeenkii. uuna ka helay shaqadii, wuxuuna la yaabay sida fudud ee loogu aqbalay inuu shaqada qaato. maalinkii koowaad habeenkiina markii la gaaray, wiilkii ayaa aaday goobtii shaqada si uu ula wareego shaqadiisa. wuxuuna bartay waardiyihii kale ee ka horeeyey, wuxuuna ahaa nin duq ah. habeenka markay jabaqdii ay degtay ayaa wiilkii waardiyihii ka horeeyey usoo bandhigay shaah inay wada cawaano. marka ayagoo iska sheekaysanayo ayaa waxay maqleen jaqaf meelaha ka yeedhayso. arrintaas oo cabsi badan ku abuurtay wiilka una keentay walwal ayaa weydiiyey waardiyihii duqa ahaa. wuxuuna ugu jawaabay inuu ku mashquulin codadkaas oo iyagana ay caadaysteen maqlitaanka codadkaas. wiilkii ayaa qaatay taladii ninkii duqa uu u soo jeediyey, wuxuuna isku dayey inuu iloobo waxyaabihii uu maqlay. laakiin durbadiiba wuxuu arkay humaagyo ama hoos hortiisa si xowli leh ku maray hortiisa, taasi oo u keentay inuu aad u naxo. wiilka ayaa soo qaatay ul, wuxuuna ku dul wareegay bakhaarka lacal haddii uu tug noqdo, balse waxba muusan arag. wuxuu u soo laabtay waardiyihii duqa ahaa, wuuna ka waayay meeshiisa oo sii baxay. durbadiiba wuxuu maqlay aadaankii salaada subaxda. wuxuu dareemay nafis. 2 saac oo juusta ah markii la gaaray, waa wakhtiga ay shaqadiisa dhammaato. asigoo su'aalo badan qaba, shaki badanna uu kaga jiro waardiyihii duqa ahaa, ayaa wuxuu la kulmay waardiyaha maalinkii ilaaliya. waardiyaha maalintii meesha ilaaliya ayaa ka akhristay wejiga wiilka inuu qabo su'aalo badan. waardiyahana wuu ogaa waxa ku dhacay wiilka. waardiyihii ayaa weydiiyey wiilka, aaway ninkii duqa ahaa ma weysay? wiilkii ayaa aad ula yaabay, kuna ziyaaday cabsidii iyo shakigii uu ka qabay arrintaa. waardiyihii ayaa mar kale hadlay, wuxuuna yidhi, ninkaas duqa aad aragtay waxaa dilay tuugo habeen soo weerartay bakhaarka. marka ay badeecada suuqa qarashkeeda ay siyaaday, wuxuuna ku waayay halkaas naftiisa. habeen walbana laga bilaabo markaas wuxuu u imaadaa waardiyaha goobtaas ilaalinayo. taasina waa sababta keentay shaqada si fudud inaad ku hesho. sidaasi awgeed, waardiyayaasha waxay shaqeeyaan hal habeen oo keliya. subaxii markii la gaarana meesha way ka ordaan. haddii aad ka heshay sheekadan ama ku cajiib geliyey qaabka aan u soo diyaarinay muuqaalka, subscribe noo dheh. haddii aad hayso sheeko xaq oo run ah oo adiga kugu dhacdayna, hoosta noo soo dhig commentiga. waadna mahadsan tahay daawade.